fadlan subscribe gacanta midigta haddaad alaab ku haysto bidix labada subscribe ku dheh hadday fartan xataa mashquul kaa tahay faryarada uu saadhadaadi maxaa kaa galay soomaalida garan gelinkii dambe ee maanta waxaa kulan waqti fara badan qaatay ku yeeshay villa Soomaaliya madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii hore ee dowladda ku meel gaarka Shariif Sheekh Axmed kulankan oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo xaqiijin radio kulmiye ayaa waxa ay sheegeen in labada mas'uul ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalka iyo cadaadiska xoogan ay ku hayaan xukuumadda Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ahi mas'uuliyiinta ayaa isla meel dhigay sida la sheegay sidii looga shaqeyn lahaa horumarinta dalka iyo samata bixinta shacabka Soomaaliyeed ee la daalaa dhacaya dhibaatooyinka soo wajaha siyaasiyiinta mucaaradka ayaa hadii jeeraalaba dhaliilo xoogan u dira dowladda Soomaaliya iyagoona sheega in xukuumadda Soomaaliya ay ka gaabisay wax ka qabashada ammaanka dalka isku ahaynta maamul goboleedyada dalka ka jira iyo inay ku tunteen dastuurka qabyadaha ee dalka u degan kulankan ayaa ku soo aaday xilli Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya shalay uu sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo waliba madaxweynihii ka horeeyay Xasan Sheekh Maxamuud isku geeyay inta wixii ka dambeeyay ee balama ah ee la dhigay aysan suurtoobin in qabsoomaan